بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد waxaan rabaa halkan aan ku duubo xisaab yar oo isku dhufasho ah hore waxaan usoo duubnay cashiro ku saabsan isku dhufashada kuwaas waxay ahaayeen min hal god maasha Allah aad waa loo fahmay waan arkay inta badan falcelinta maantana waxaan jeclaaday marka inaan soo gudbiyo min laba god inta badan waan naqaanaa laakiin waxaan rabaa dariiqada aan naqaano maana mid kale ka duwan inaan idin tuso oona ka sahlan mid hore aad taqaanay insha Allah xitaa haddii aad mid hore aad taqaanay taas xitaa ay ku mid ku sahlan tan waxaa laga yaabaa marka inay ku noqoto khibrad ee aad u dhegeyso marka waa min laba god insha Allah min saddex god min afar god way noo imaanayaan kiiskas ayaan u soconaynaa haddii aan soo qaadano tusaale waxaan dhahayaa 34 lagu dhuftay 22 meeqa ay la mid tahay xisaabta markay saan tahay waxaan sameysanayaa saddex xariiqmo 1 2 3 ayaa sameysanayaa markaan sameysto intaan imaanaa isku dhufashada markaan bilaabayo kan koowaad iyo kan koowaad ayaan isku dhufanaa kan labaadna waxaan ku dhufanaa kan labaad marka saddex ku dhufo 2 waa 6 booska koowaad ayaan dhiganayaa ama xariiqada koowaad ayaan dul saaraa 6 afartan waxaan ku dhufanaa tan labadan kale booska labaad joogto 4 2 ku dhufo waa 8 booska labaad waan ka boodaa booska saddexaad ayaan tagayaa intaan dhigaa 8daas dib intaan ugu soo laabanayaa haddana afartan ayaan waxaan ku dhufanaa labadan saddexdan waxaan ku dhufanaa labadan kale 4 2 ku dhufo waa 8 inta ii dhig 3 ku dhufo 2na waa 6 calaamad isku darkaan isticmaalayaa 6 marka 8 u geeyay 6 waa 14 ii qor 14 markay tahay marka 4 intaan dhiganayaa halkaana intaan saaranayaa marka waan isku darayaa 8 aan soo deji wax lagu daraa malaa'ida afartaas sidoo kale soo deji halkaas iyo 6 isku geeyay waa 7 marka 34 haddii 22 aan ku dhufano waa 748 34 haddii aan ku dhufano 22 waa 748 waxba ma sameynin saddexdan waxaan ku dhuftay labadan ayaan ku dhuftay afartan waxaan ku dhuftay labada kale ayaan ku dhuftay marka koo waxaan isticmaalay booskan koowaad ayaan isticmaalay kan waa ka booday kan saddexaad isticmaalay kadib markaan kan saddexaad isticmaalay waxaan sameeyay intaan usoo laabtay afartan ayaan waxaan ku dhuftay labadan kale intaan ku qortay 8 ayaa ii soo baxday haddana saddexdan waxaan ku dhuftay 2 6 ayaa ii soo baxday waa isku daray 14 afarta intaan dhiganayaa halkan waxaan saaranayaa kan 6dan korkeeda kor saartay kadib waa isku daray 8 waa 3 wax lagu daraa malaha afarta waa 3 halkaas 6dan u geey 7 waa 748 misaal kale aan soo qaadano kan aan iska tirno kan waa iska tiraynaa mid kale ayaan ku baroobaynaynaa waxaan leeyahay markaan 41 lagu dhuftay 56 meeqa ay la mid tahay marka laga shaqeynayo waxaa weyn lama sameynayn saddex xariiq ayaan sameysanayaa 1 2 3 markii aan sameysto afartan oo boos koowaad iyo 5tan ayaan isku dhufanaa halkan waxaan ku dhufanaa 6dan isku boos ay joogaan 4 ku dhufo 5 waa 20 20ka dhammaan waa qoranayaa 2 eber marka aan qorto hal ku dhufo 6 waa 6 booskan waan ka boodaa waxaan boodaa booskan inta 6 waa qoranayaa kadib badan waxaan sameynayaa halkan oo booska labaad ii joogay iyo 5tan oo booska koowaad joogta ayaan isku dhufanaa afartan oo booska koowaad joogta iyo 6dan booska labaad joogta ayaan isku dhufanaa marka hal ku dhufo 5 waa 5 waxaan isticmaalaa calaamad isku darka zaa'id aan isticmaalaa 4 ku dhufo 6 waa 30 4 ku dhufo 6 waa 24 24 aydan ii qor marka 5 u geey 24 waa 29
labaad sagaal ii qor markaa kadib waxaan sameynaa sagaalka intaan dhiganayaa labadana inta ayaan dul saarnaa kadib waxaan adeegsanayaa calaamad isku darka 6 wax lagu daraa malaha soo deji 6 ayaan kala jeedaa tan sagaalkana sidoo kale soo deji ayadana labadan labaatanka u geey waa 22 qoro marka 22 marka haddii 41 aan ku dhufano 56 jawaabta imaanayso waa 22 iyo 96 ama 2296 waa 2296 waa 2296 waana baroobeyn kartaa marka waa wada aad u fudud waaye mithaal kale aan ku siinayaa oo u dambeeyo marka ma doonayo inaan waqtiga dheereeyo laakiin mithaal kale aan ku siinaa wuxuu noqonayaa 6 iyo 3 lagu dhuftay 6 iyo 3 lagu dhuftay 24 meeqa ay la mid tahay 3 xariiq ayaan samaysanaa marka hore saan hor u sheegaba 6dan waxaan ku dhufanaa labadan 3dan waxaan ku dhufanayaa 4tan 6 ku dhufo 2 waa 12 waxaan dhiganayaa booskan koowaad ayaan dhiganayaa 12 tii dhig 3na waxaan ku dhufanaa 4 sidoo kale waa 12 kaliya waxaan qornaa marka 2 ayaan qornaa maadaama 2 lambar ay tahay 2 ayaan qornayaa halka inta ayaan dhiganaa markay 2 lambar noqoto ay qaybta u dambeyso hal lambar ayaad qornaysaa tusaale 12 ayaan qornayna halka awal waa soo qaadan jiray waa soo qaadanay inta aad dhiganaysaa kadib haddana mar labaad inta soo laabo 3dana waxaan ku dhufanaa labadan 6danna waxaan ku dhufanaa 4tan 3 2 ku dhufo waa 6 calaamad loo geeyay ayaan isticmaalayaa 6 ku dhufo 4na waa 24 haddii 6 loo geeyo 24 waa 30 soddonka ii qor inta waxaan dhiganayaa marka eber intana waxaan dhiganayaa 3 korkaan 12 korkeeda waxaan saaraa 3 kadib isku dar marka labadaas soo deji hal eber u geey waa 1 3 2 u geeyna waa 15 15 marka waa 1512 3 ku dhufo 24 waa 1512 aan baroobeeno 63 ku dhufo 24 waa 1512 marka waa wada aad u sahlan aad u fudud haddii aad si fiican u taqaano dhufashadana tan waxay ku noqonaysaa khibrad aad u dhageyso muuqaalka share garee walaalahaaga insha Allah la faa'iid insha Allah waxaa soo gudbinayaa wadooyin aad u fudud insha Allah intaad ila jirto wax badan aad iga faa'iideysaa kaag subscribe saar. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.